qof aan ku jeclayn adiga. Waa laga yaabaa inaad is leedahay qofkan may jecel yahay mise ma jecla oo ima baahna. Balse qofka leh dabeecadahan ku sheegi doono kuma jecla adiga. I hope inaad u dhegaysan doontid si wanaagsan. Number 1, kuma uu tixgeliyo adiga. Xiriirada saxda ah waa kuwo la istixgeliyo oo la kala dambeeyo. Number 2, mashquul iyo waan ku soo wici doonaa ayuusan ka dhammaan karin. Qofka la jecel yahay si kastoo mashquul u jiro haddana lama waayi karo hal mar oo lagu soo waco. Number 3, badanaa waa qof aan la heli karin sidan oo kale markay dhacdo. Waxay isticmaalaan qaacido ah waan mashquulsanahay ama waan mashquulsanaa ama howlo ayaan ku jiray dib inaan ka soo wacayaan rabay laakiin waan ilaaway. Miyaa la ilaawi karaa qof dhan oo idinka dhexeeya xiriir aadna jeceshahay? Number 4, qiimahaaga way iska inkirayaan. Ma jirto wax ka xun qof inaad waqti geliso si aad ula xiriirto misna iska inkira adiga xitaa hal daqiiqo aad awoodi weyso inaad aragto. Number 5, badanaa wiil hadduu yahay saaxiibadii waxay kaa aaminaan tilmaamo qaldan oo isagu siiyo halka gabarna ay si la mid ah u sheegto saaxiibada tilmaamo aadan lahayn adiga. Tusaale ahaan, qof hebel waa qof xun, ima wanaagsana, ima qancin iyo wax la mid ah. Number 6, waqtiyada aad jaanis isku heshaan wuxuu soo koobaa hadalka ama si la mid ah iyadana waxay soo koobtaa hadalka oo waxay muuqdaan qof meel u degdegayo kale. Number 7, fariimahaaga waxay qaadataa in laga soo jawaab celiyo waqti dheer oo badanaa waa la iska inkiraa. Laga yaabay adiga inaad isdhexdo waa mashquulsan yahay ama way mashquulsan tahay, laakiin qofka si kastoo mashquulsan yahay kuma waayi karo daqiiqo oo lagaaga soo jawaab celiyo. Marka haddaad aragto in la inkiraayo fariimahaaga wax badan si qofkan kuma arko inaad u wanaagsan tahay ama kuma baahna. Number 8, xiiso weyn kuma haysid oo badanaa adiga ayaa raadiya oo jaanis siiya oo waca mar kasta. Adigu uuna ayaa kula hadla hadallo degan oo wanaagsan, balse qofkaas wuxuu markasta raadiyaa marmarsi uu kaaga tago. Number 9, waxay u muuqataa inuu kula dagaalayo ama ay kula dagaalayso wax aan micno lahayn iyo weliba soo baanan jirin. Tani waxay dhibaato ku noqon doontaa tayada xiriirkaaga guud ahaan. Number 10, haddii ninku bilaabo inuu isku dayo inuu kuugu bedelo waxaad rabto oo aanad ahayn waxaad rabto inaad ahaato, runtii isagu kuma jecla. Number 11, waxaa had iyo jeer u muuqdaa ama u muuqata inuu ka hadlayo qalad horey looga soo gudbay oo uusan hadda ka hadlayn waxyaabaha hadda socda. I hope inaad wax badan ka fahantay. Halkaas ayuu ka eegaya saaxiibayaal. Anta muuqaalka xiga. Nabadgelyo.